كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشر كي لو بقولي اللباد qaybtii afraad ee su'aalaha iyo jawaabaha ee qaybtii 34 ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. Waxaynu maanta ka warrami doonaa qaabka loola tacaamulo ama loola dhaqmo ilmaha marka caniidka ah ama ilmaha marka madaxa adag. Inagoo casharka hore soo sheegnay sababaha caniidka ama madax adayga keena ubadka. Kow waxa loola dhaqmi karaa baa la yiraahdaa in waalidku ay noqdaan kuwo markaa degan oo dulqaad badan. Waxa la yiraahdaa haddii xaaladdu marka ay qofku wacaysan yahay ama dhaqankiisu adag yahay baa la yiraahdaa laguma waajihi karo baa la macnaha waxa marka adayg kale ama xidhnaan kale way xaaladdu way kasii xumaanaysaa baa la yiraahdaa. Markasta waalidku waxa la yaabaa inay marka hore deganaanta marka ay sameeyaan. Number 2. Number 2 waxa la yiraahdaa ilmaha waxyaabaha waa inuu ay jiraan marka control marka waa inay jiraan marka waa inay jiraan boundaries marka wax isaga iyo waalidka marka u dhaxeeyo oo ay marka isku og yihiin oo macnaha waxyaabaha ubadka ay qabanayaan ama waxyaabaha ay sameynayaan oo kale ama xilliyada sameynayaan ama meesha ku sameynayaan waa in waqtiyo gaar ah marka ay leedahay waxa la marka time limit waa inuu jiro marka wax ilmuhu haday halka u dhaafaan loonin waxa soo qalad weey iska daa haday inta marka ay qaldaan marka la saxayo waa ku xiga waxa loo daaweyn karaa baa la madax adayga in marka la isticmaalo shay marka wax positive ah oo hadii ilmi wax fiican soo kordhiyo baa la yiraahdaa ama wax fiican uu qabto in marka wax la cirka la geeyo marka marka waxa la marka wax fiican marka loogu qabto baa la yiraahdaa. Ta kale waxa la yiraahdaa in la dareensiyo ilmaha madax adag yahay waxbaan qaadanin in laga dhigo marka responsive marka qof responsibility ama qof marka mas'uuliyad iyo marka in la dareemo qofka mas'uuliyad qaadi karo in wax qaban karo waxa in guriga oo kale wax looga diro oo kale alaabtii inuu hagaajiyo wax qabto oo kale ayaa marka loo sameeyaa marka. Haddaba waxa la yiraahdaa iyadoo su'aasha ku xigta haddii inta marka qofku uu ku eego haddana hagaag weydo muxuu noqon karaa baa la haddana shayga marka istabta ku sii xigta waxa la sameyn karaa baa la yiraahdaa waxa la marka time out ka waxa weeye ilmihii salahan wax kasta gurigooda ugu sameeyay way ku hagaag waayeen wasaaraysa baa la marka banaanka u kaxaynaysa banaankaad geynaysaa marka ama meel cuntaad geynaysaa ama waxaad geynaysaa baar daxiis baa u kaxaynaysaa oo kale ama tartamo ama competition marka la qabanaysaa ka qayb gelinaysaa macnaha gurigii inteedu u dhaweyd marka baad ka saaraysaa marka comfortiga uu ku jiray baad banaanka uga saaraysaa tayirka waxa marka waa dawaal waxa kale kamid ah baa leedahay awaariska marka in ama gifti ama hadiyad ama wax fiican marka hadduu wax yar qabtoba loo keeno waa la marka uu arki karo oo taaban karo waa in marka la siiyo waxaasna waxay meesha ka saarayaan baa la marka madaxadaygiisa ka saarayaan. Ta kale waxa la hayadana waxa looga bixin karaa baa la madaxadayga logical consequence waxa la yiraahdo inuu dadka ay jirto qaab in loo dhaqmo marka logical macna aqli gal ah oo hadduu qalad sameeyo inaan marka aan ul ama hadal waxba lagu oranay qaab logiga marka loo daaweeyo. Salaha hadduu yiraahdo hadduu wax jabiyo oo kale ama hadduu wax la yiraahdo uu shay xumeeyo oo kale in marka isna la yiraahdo waxa laga rabaa ama waxa soo qabanaysa waa in la yiraahdo ama la yiraahdo waxa bixinaysa macnaha shayga uu sameeyaba waa in shay kale marka lagu xidho marka oo aan ahayn laakiin in dhibaato loo geysan waxa loo geeyaa in shay kale inuu qabto action ah inuu hadduu wax jabiyo oo kale in la yiraahdo waxa hagaaji ilaa waxa hagaajin mooyee xamaanta ku socon maaya. taas waxa ka mid tahay marka waxyaabaha loo daaweyn karo. Waxa daba la yiraahdaa ilmaha in caniidkii marka madax adayg inuu ka ba'ay ama uu soo roonaaday ama uu fiicnaaday maxaa lagu garan karaa waxa lagu garan karaa baa la yiraahdaa horta kow waalidku inay fahmaan ilmihiisan horta caniid ma yahay qof macnaha madax adag waxbaan ka qaadan waxbaan horta ma yahay taa inay fahmo horta kow. Talaabo waxa la yiraahdaa waa inuu astaamihii arki karo oo ilmihiina wax inuu ka qaadan oo kale ama astaamihii qofku waa inay waalidku ka dareemaan oo ubadka ka fahmaan inay ilmaha marka caniid marka inuu yahay. Ta kale waxa la yiraahdaa iyadana maintain consistency waa qodobka muhiimka ah shayga marka daaweynaysa wax ka qabanaysid wuxuu u baahan yahay joogteyn buu u baahan yahay. Salaam qaabka dula hadlay sidoo kale
qaab hadduu wax khaldo oo kale qaabka u daweynaysid waa in marka waa maxay aad waqti aad siisid markaa. ta kale waxa la iyadana aad ku garanaysaa marka iyadana waa inaad marka aanad marka waa maxay encouragement-ga ama dhiirigelinta marka waa inaad marka aad wadid. marka waad arkaysaa haddii 2 bilood ka hor ku joogay iyo haddii maanta halku taagan yahay marka 2 bilood kadib haddii marka adigan dhiirigelintaada macnaha qofka wasaad marka intaqaana aad u dhiirigelinaysid marka aad u joogtaysid marka. ta kale waxa la yiraahdaa iyadana waa inaad marka madax banaanida xoogaa ka mid ah macnaha boundaries-ka waa inuu fiican yahayo waa inaad isku daydo qofka inuu wax qaban karo mar kasta oo isaga waad ku daydo marka maskaxdiisa aad u jeedisid inuu mashquulo marka waxa uu qabto shayga qabo marka aad wax kasta waan u qaban. ta kale wax intaa wixii ka sii dambeeya waxa la yiraahdaa waxa fiican qof marka consultant ah in marka aad kala tashatid marka dabeecadda waxyaabaha kale sii caawinaya iyadoo marka ku xiran qofku deegaanka uu joogo iyo meesha uu joogo iyo waalidkiisa waxa iyada ku xiran tahay qof marka ku fiican professional ku ah consultant ah baad marka ula tagaysaa. wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.